ninkii naagta markay isu tagaan oo macnaha isu galmoodaan oo isqabaan ninkana waxaad ka helaa naagtiisa macaan ayadana macaan. Hadda gabdhaha maharkooda siiya markii la yidhaahda waxay leeyihiin bilcaanti maharkaadaan ku siina haddaa la yidhaahda in la furaayo u malayna waxaasoo barbagaandi ii dacaya nin bay u baahan tahay. Kabacdi waxaan jiraa meel dheer dibidaan jiraa biilaan soo diraa gabadha oqooqa moos iyo cambo ka dharkaas wax xumaan hadday soo bisay horta naag urle way furmi kartaa. Caamada ayaa waxay ku naag urle ma furantaa haa naag urle arrintaa waa idinku baraarujinaynaa. Naag urle waa furmi kartaa. Waa idin imaane waan idin salaaneena salaama maxaad ugu qaadi weysaan buu yidhi. Gabdhahan oo ilmaha in lagu furo si daanyeerta dusha ku wadaan oo xafiisaha qaaligii dur markaas ayada biila-aan waay waxa la siima gabdhahan oo ayaga dhammaalaba qaxooti u wada ekaan silac isa xariire maya gabadha duli looma ogola. Gabadha tankeeda waa ka badan yahay acuudu billaahi abo hadday aragtaba waxaan gabadh dharka haddaad soo dhawaa dameer oo kale allahey ka allah waa diidi kartaa markaas. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. مؤمنينتا ندقيسنايين أما مناركايين waxaan isku baraarujinaynaa cashar oo muhiim ah cashirkaas oo ku tacalluqo xuquuqda bilcaanta ay leeyihiin oo ilaahay sii oy diinteenna caddaysay ayagoo laga yaabo qaar badan inayna xuquuq lahayn oo dadkan macnaha gaalada xuquuq hadda u keeneen in ku badan ay u malaynayeen ayaa waxaan xasuusinaynaa gabdhaha muslimaadka mu'miniinta xuquuqdaad ilaahay siiyey ma la siiyaa mise lama siiya waa dhinaceeda waaye maxaa loo sii weeyena waa su'aal kale waaye. marka ugu horreysa bilcaanta gebigooda markii la fiiriyo waxaa la yidhaahdaa jaalibatul ashaari wal owlaad warshadda ilmaha soo saaraysa iyo xerigga dheer oo network oo xididnimada keena. bilcaanta ayagaa rususha dhaleen ayagaana ambiyada dhaleen sidiiqiintii shuhaadadana ayagaa hooyo u oo dhaleen saalixiina ayagaa dhaleen. saa darteed waxay nuujiyaan bini'aadanka oo dhan niskiisa ayagaa nuuji marka waxay noqonayeen nisful ummati ummadda laba meelood raggii bilcaan markii loo kala dhigay niskiisa waa bilcaan haddana niska kalena ayagaa nuujiyeen nis waa yihiin niska kale oo raggana ayaga ayaa nuujiyeen. allah ayaa wuxuu ka dhigay bilcaanta madlacul barakati wasacaada liibaantii guusha meeshay ka dhalata ayaa macnaha ad alla ka dhigay subxaanahu wa tacaala. waxaan leenaha hambaliya yaa ummahaatil insaan bini'aadankoo dhan hooyadiisiiyo hooyayaalkii macnaha hambaliye ayaan idin leenah waanad ku mahadsantihiin waxaad ilaahay idiin hebeeyey oo dhaxdiinna dhile. allah subxaanahu wa tacaalaa markii bini'aadankaad ku abaal sheeganay bilcaantaa laga bilaabay ilmaha la sii abaalka allah wuxuu leeyahay yahibu liman yashaa'u inaathan wayahabu liman yashaa'u dukuura. ilaahay waxaad u hibeeyaa ood siiyaa ninkii doona lambar kow yaa laga bilaaba inaathan bilcaan ayaa laga bilaabay marka kabacda yahabu liman yashaa'u dukuura ayaa la dhahay. allah subxaanahu wa tacaalaa waa xushmeey waa darajeey diinteenna waa darajeysa xataa la dhahaa culaysoo dhan haa laga ilaaliya sidii boqoriinta oo kalaata culays oo dhan aa laga ilaaliya mashaakil dunyaa oo dhan ayaa laga ilaaliya
sidii loo ilaalinayo rasuulkeena subanay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku shabahay rifqan bilqawaariiri buu yidhi macnahaan la dhibin sida dhalad oo kalaata ha la ilaaliye waad aragtay si loo ilaalinayo madaxdan adduunka oo dhan washmayni waaridiye ayaa loo yeelay gabdhaha mu'miniinta waaridiye ayaa loo yeelo oo layidhi meel macnaha maxram la-aan oo ay dhibaato ka soo gaaraysa ayada oo qof qaraabadeeda awood leh xoog leh aanad la socon xataa caruur maahin iyayna macnaha u kacinaa la dhahay si loo waaridiyna sida madaxda oo kalaata ayaa loo waaridiyey darajo iyo sharaf ayay leeyihiin haddii ay bilcaanta adduunka joogo oo dhan ay diidi lahaayeen ilmaha inay nuujiyaan adduunkan maxaa ka dhici lahaay bilcaanta adduunka oo dhan ilmo nuujini mahayn bilcaanta adduunka oo dhanna guri geli mahayn haddii ay dhihi lahaayeen adduunka oo dhan waa qarribmi lahaay marka ugu horeysa darajada ad ilaaha idin siiy bal marka hore xasuustoo suurad dhan oo 176 aayadood ka kooban ayaa suuratu nisaa lagu magacaabay maasha allah farxa alxamdulilaahi dhaha meeshaas ku farxa ragga meel suurad oo ragga lagu magacaabo ma jirto suuratu rijaal qur-aanka raadiye suuriyaalka dhaadheer oo baqara iyo aala cimro suuradda ku xigtaa waaye oo suuriyaalka dhaadheer suuratu nisaa suuradda nagaha ku celi suuratu nisaa suuraddii oo suuriyaalka 114 ka mid oo suuratu nisaa la dhaha sharaf intaas ayaa idinkugu filin rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay maa akramahunna ilaa kariim wamaa ahaanahunna ilaa la'iim bilcaanta ma xushmeeya oo ma darajeeya oo xaqa aad ilaahay siiye ma siiya ilaa nin darajo leh moogiye bilcaanta ma yasa oo ma liida oo xaqooda kuma ciyaara ilaa la'iim nin oo macnaha la'iim oo dhur darsaday oo khaa'in moogiye nin kale macnaha bal ku celi hadalkaas yaa karaameeye nin aad ilaahay karaameeye yaa xumeeye nin xun saa darteed rasuulka salawaatullaahi wasalaam oo ku bishaaraysa macnaha wuxuu leeyahay xubbiba ilaya min addunyaa adduunyadan oo dhan waxaanu jeclahay annisaa waatiibu bilcaan ayaanu jeclahay iyo wax udgaayo catarar barafuun gabdhow maqla nabiga intaas idin geey barafuun iyo macnaha iyo idinka ayaa ladin simay darajadan darajada ka weyn oo raadinaysiin maxaa waaye xuquuqda bini'aadanka jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa idinlagu haaye rasuulkeena subanaay ayaa idin jeclaaday sidii barafuunka oo kalaate salaadana ishayda qabowgeeda laga yeelay allah subxaanahu wa tacaala waxaad sii bilcaanta xuquuq fara badan xuquuq maali ayay leeyihiin xuquuq diini ayay leeyihiin xuquuq ijtimaaciyo bulsho ayay leeyihiin xuquuq siyaasi ayaa intay diinteen ayaa idin siisay marka ugu horeysa horta waxaan idin leeyahay diinta akhrista kutubaha akhrista xuquuqdaad leedihiin meesha dhinaca ay jirtaa meeshaad u malaynaysiin maa jimcid qurmaha ka dhaxaysa iyo macnaha gaalo kulanta xuquuq idinma haysa xuquuq diinta ayay ku jirtaa bal diinta horta barta xuquuqda aad alla siiye waxaa ka mid oo maal mahar ayaa la siiye allah wuxuu leeyahy wa aatu nisaa'a saduqaatihinna nixlatan markii maxaa la yidhaahdaa waad garanaysiin ninkii naagta markay isu tagaan oo macnaha isu galmoodaan oo isqabaan ninkana waxaad ka helaa naagtiisa macaan ayadana macaan waxaad ka helaa malab ayadana waxay ka helaysaa malab haddee ninkii maharaa dusha laga saare sababta looga saara maxaa waaye nixla waa macnaha sharaf iyo darajo waaye gabdhow isku noqdo oo bal meeshaas keliya xadhadhamiiba sababta maharka ninkan loo saara maxaa waaye waxaabaa la yidhaahdaaba oo ragga yidhaahdaa mutaqaatiriinta bay leeyihiin raggii bilcaanta waa shahwo badan oo qooq badan adaaba ka qooq badan oo kasii shahwo badan waa kala macaansateen macnaha maxaa ninkan loo saara maharka waa darajo iyo xushmo ood ilaahay idin siinaa bal horta taas ku qanaca marka horeysa
maharkaas ama deyn ha noqdo ama xaal ha noqdo. nacam waxaa la rabaa caado ayay ragga soomaalida ay ka dhigteen in gabdhaha deyn lagu guursado. xadiidka rasuulka maga la soo biyey deyn lamaba aqaaninba, gabadha maharkeeda hore ayaa laga siin jiray, horay ayaa laga siin jiray. marka saa darteed hadda gabdhaha maharkooda siiya markii la yidhaahda waxay leeyihiin bilcaanti maharkaadaan ku siina haddaa la yidhaahda in la furaayo u malayna waxaasoo barbagaandi ii dacaaya. gabadhaha maharkooda haddaa la siin lahaay macnaha masaajid ayay dhisi lahaayeen, madaaris ayay ku becsharaysan lahaayeen. marka saa darteed bilcamaha deynta lagu wada qaboo dhan ka daaya. soomaaliya caadadaas xun, fikraddaas idinka gabdhow maharkaadaa lagu siina haddaa lagu dhahana waa deyntaada iyo xaqaada waaye waxaa ahayd marka horeba in markii lagu aroosaaba in faraha lagaa saara ayay ahayd. idinkana hadharfine xaqiina qaata. waxaa la siiyey nafaqa, masruuf ayaad ilaahay idin siiye. hala masruufo liyunfiq duu sacata min sacatihi. waxaan idin sheegaynaa oy kutubaha dhigayeen biilka laydin siinaayo waa biil idin gooni ah. ragga ma ogola arrintaas in la caddeeyo. waa caddaynaynaa, xaqa ayaan caddaynaynaa. cidda biilkeeda oo ilmaha iyo duqo xaajiga ku qaba iyo gooni waaye. biil adiga kuu gooni oo yowmiyan oo macnaha raashiinkii macnaha bariiskiisii iyo burkiisii iyo saliidiisii iyo qudaartiisii hilibkiisa oo kuu gooni xataa waxaa u bannaan inay aruursato xataa ayna karsinin. ama ilmaha iyo duqo kuwooda gooni waaye. waxaan soomaalida ay bilcamaha loo guursanaa ciidan darra loo guursanaa diinteena ma qabta. marka saa darteed biil ayaa la siiyey oo u gooni gabdhow xaqaas xaq ka fiican miya jimcadu qurumaha ka dhaxaysa biil gooni miya idin siinaysaa. waxaa la siiyey alkiswa aradbax, haa la arad bixiyaa la yidhi. maqal aayadda qur-aanka wacala almawluudu lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruufi. ninka ilmaha loo dhalay oo gabadha guursaday macnaa irsaaqoodii iyo arad bixintooda ayaa laga rabaa. xaqaasaa lagu siiyey. 4 almaskan guri ayaa la siiyey. maqal ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy askinuuhunna min xaytu sakantum. gabdhaha ha la dejiye meel fiican oo meeshaas degantiiska mid waxyaalka 5 waxyaalka ay soomaali almutca waxa la yidhaahdo. mutca waxaa waaye sabarsiin. gabadha markii ninka la kala taga haddii aad nasiib ka dhammaada oo macnaha maharkeeda la siiye waxay leedahay wax dheeraad oo sagootin ayay leedahay. soomaalida ma baqaana maharkii ama la siinaynin intaa laga siinayaa. maqlag waxa laydin siinaya walilmudallaqaati mataacun bilmacruuf xaqan almuttaqiin. sagootin ayay reerka ku leedahay. maharka maaha haddiiba la kala tago sagootin xaq aad idinka leedihiin waaye. waxaad xaq u leedihiin wanaag in linkula dhaqdo xagga sariirtii guriga. walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruufi. gabadha ninka waxaad jecel yahay inay isoo diyaaristo, barafuun marsto, isoo qabaysto, shaashalayste. asagana intaasaa laga rabaa. asagoo wasa keliyaha gabadha hoos inaad ka soo gala maaha. intii idin laga raba asagana ha soo qabaysta, ha soo shalaysta, isoo udgiya. maqal wuxuu ilaahay leeyahay walahunna waxay leeyihiin mithlu aladii calayhinna bilmacruuf. wixii ayaga lagu lahay o kala tahay ay leeyihiin. xaqaas ayaa ladin siiyey. xaqa kale oo la yaabka leh oy soomaalida aqaano waxaa waaye xaqul ujra min aradaac. cunuga aad adiga dhashay oo naaskaada nuugaa naaskaada nuujintiisa inaad ijaar ka qaadataa kuu bannaan. ku celi maxaan ku dhahay biilkaada waa qaadatay, aradbaxaadana waa kuu gooni, gurigaada iyo firaashkaada waa gooni. cunug ayaad dhashay, naagaad nuujine, aabbihiis ayaa waxaa kuu bannaan niyo naaskaanaan kuu nuujinaya kabacdi macnaha ijaar iga sii. nimanka waa hanaaqan waa dhirfayin. idinka naftiinaaba isla yaabaya arrintaad ma maqshiin. ilaahay wuxuu leeyahay fa in arlacna lakum fa aatuuhunna ujuurahunna. war haddii beel lidin siiye, aradbaxa lidin siiye, guri lidin siiye, xataa wax kale iska daaye cunuga adiga aad dhashay oo naaskiis ayaad lacag ka qaadan kartaa lagu yidhi. xaqan xaqa ka badan oo macnaha aad raadinaysa maxaa waaye. lambar 8 waxay leedahay alqismu alleyliy. xagga haddii 2
ay yihiin amaba saddex ay yihiin in lala saaxda ilaahay wuxuu leeyahay fa idaa tadaharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah gabdhaha sariirtaha lala saaxda kabacdi hadday dhahirsadaanna meeshii lidin idmaha looga taga ayuu leeyahay habeen ayay leedahay bilcamahan oo meel dheer in laga taga biil loo soo diraaye gabadha ciddood cunto kama weynin gabadha waxay u baahantaa nin in lala jira ay rabtaa in lala jira ayay rabtaa nin bay u baahan tahay kabacdi waxaan jiraa meel dheer dibiddaan jiraa biilaan soo diraa gabadha oqooqa moos iyo cambo ka dharkaas wax xumaan hadday soo bise kabacdi gabadha ciddooda cunto kama weynin ciddooda canjeere kama weynin gabadha waxaa waaye haddaad guursata ha kula jirtaa haddaad laba qabta habeenatan odayaasha baadiyaha waxay caado u leeyihiin markay bahyar guursadaan duqi aaw bahyarta gurigeeda bahweynta waxaad ka dhigaa qof kala dhacad haan goofaay oo kalaata ayaad ka dhigayaa maya guriga jiifka aad duqi u soo hoyinaa balshafiiri guriga naftiisaa noolaana habeenkaad soo hoyinaa guriga waa la tirtiraa waa la uuminaa sariirtaa la hagaajinaa maamada nafteeda waa sii shanlaysane waa qabaysanaysaa cunto aan la karin jirin aan la karinaa iday ayaa noolaane guriga naftiisa ayaa noolaana marka guriga haddaan guriga la imaadaynin xataa 20 cunug oo idrish hadday jiifaan raafraaf ayay noqonaysaa marka jiifkaas xaq ayay leedahay ida waaye haddiiba la qaba cadli macnaa garsoor nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay laba haween ninkii qaba oo midoo u leexda yowmalqiyaama waxaad imaadi doonaa asagoo dhinac dhan ka angegan inta bilcamhooda u suubin weysay habeenatan tansi u simi weysay yowmalqiyaama waxaa la keenaba rasuulku ayagoo dhinac dhan ka agano beresho ay ku wada dhacda oo ka bacdi feelgalayna ayagoo leen feelan socda lee dhutuq iyagoo kukufayinoo dhinac dhan ka wada angegan bir ay ku macnaha iyo waxay ku burtoona iyo waxay cuskunaan aanan la helaynin nacam marka xaqaaqda la siiye waxaa ka mid sharafteeda iyo sirteeda in la ilaaliya waxaana ay nimanka ku sheekaysanaan naagtaydisaan waa naagtay dadka ahlunaar waaye rasuulku wuxuu leeyahay naagtaa sirteeda inay hunna libaasun lakum antum libaasuna dhar ayaad usutiina la yiri bal nabiga wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh min ashari nnaasi cinda allaahi manzila yowma alqiyaama yowma alqiyaama dadka ugu sharta badan oo u cadaabka kulul waxaa waaye arrajulu yufdii ilaa imra'atihi wa tufdii ilayhi tuma yanshur sirahaa macnaha habeenka ay isla saaxanayeen asagana wuxuu naagti saan waaye tan waaye sirtaad faafanaa idin waa faafine dadkii yowmalqiyaamo ugu sharta badan maanta miidiyahay leedahay intaasaas yeeliya oo waxaasaa la dhaha oo macnaha faarax waxaasaa la dhaha oo biriqaa la dhaha waxaad maqlayna acuudu billaahi min ashaytaani rajiim dadkaasay haddii aad aynu ku faanayiin u malayna maxmed ayaa idin sheegay dadka ugu sharta badan ayaa tihiin markaas ayada dadkaas ayada oo ninkii xalay ninkeeda sida ziyaale macnaha ku sheekayne naagtiisiisa xalay sheekaynay ku ugu sharta badan waaye saasata bilcaanta sirteeda in la ilaaliyo xaqay leedahay waaye nacam xuquuqdeeda waxay ka mid atamalluku dalaaqahaa macnaha furiinkeeda ayay milkin kartaa maxaa waaye haddii la heshiin weeye ood ninka kharaj aan u baahana aad yidhaahda kharajka markii ay bixise furiinkeeda gacantiidaa ku haysa idaa isfurays markaas ayada soomaalida waxaa caadadeede ninkii naagta markay heshiin weeyaan oo ninka xoolo loo aruuriya ayaa gabadha fur laleeyahay maxaa la furaya markaas ayada heshiiskaas agrimentadii la kala saxiixday ayay gabadhu ku furmaysaa furid lagama rabo xoolahaas aad qaatay ayay ku furmaysaa marka maharkaada isku fur waa isku furi waaba furintaaba lacag isii hoo waaba furintaaba marka dalqadaheeda in ay isku furto oo kharaj isku furto ayaa sharciga ayaad u banaynayaa sharciga waxaad u banaynayaa an tudaafic xaqahaa ina xaqeeda u dacwooto xuquuqdeeda hadday mahar weyse hadday masruuf weyse hadday macnaha cadaalad weyse hadday la jiif weyse xaq qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allah aayadam ayaa macnaha ku soo degtay ninka naagta xaqa macnaha ninka xaqeeda macnaha u dacwoonaysa
waxaa kaloo ay leedahay almiiraathu dhaxal ayay leedahay. ahlu faral waxaa waaye dadka ahlu faradka lah oo kaarar wax ku dhaxlaya ayaa jira. qur'aanka maadaama bilcaanta iyo caruurta la layasi jiri, ninka xoog leh xabagta goosta la dhihi jiri oo ragga un keliya waxay dhaxalka qaadin jireen, alla qur'aanka kaarar ayaa la bixi 25 kaar oo dhaxal ayaa bixi 25kii 21 bilcana la sii. allahu akbar. macnaha gabdhow ma maqlaysiin ya 25tii kaar oo la bixi 21 maxaa ka maqan 4 keliya rag la sii. 25 gaar oo dhaxalka ahayd oo la bixi oo qur'aanka suuratu nisaa ayaa badana ay ku yeelaan 25kii 21 rag la sii, macnaa 4 kaar keliya hay cadaalad la sii. marka ma lidin heeshe ma lidin sharaf ma sharafin. nacam sidaas oo kalaata waxay xaq u leedahay ayadoo oo uur leh haddii la furo waa lagu masruufayaa. wa in kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna xataa yalacna xamla. naag uur leh ninkii furo ama walac ha ku furo ama uur weyn ha ku furo. horta naag uur leh way furmi kartaa. caamada ayaa waxay ku naag uur leh ma furantaa? haa, naag uur leh arrintaa waa idinku baraarujinaynaa. naag uur leh waa furmi kartaa. dalqada way ku furmi kartaa. 2 dalqadood 3 dalqadood wixii lagu furo ay ku furmi kartaa. tan kale waxaan idinku baraarujinaya ragow, bininkii naagta daa isdiidaan, naagta xaqeeda way leedahay, maharkeeda way leedahay. diidadaas iyo naagshadiimadii iyo naagta ninka ay diidde masruufka iyo marashada ayaa ku dhacaya moogii mahar dhici maayo. dad badan oo caamo waxay u malaynaan naagta ninka hadday diidaba inay mahar leeyaan. ma jirto mahar. hataa ninka hadday dishe mahar way leedahay. hadday dishi dhiig waa laga qaadaa, waa loo dilaa, laakiin mahar dayn waaye. saa darteed dad badan rag badan waxaa u malaynaa ninkii naagta ay isdiidaanba inay mahar leedahay. mahar ay leedahay. nacam. marka saa darteed bilcaantii iyadoo uur leh haddaa la furo ilaahay qur'aanka waxaad xaq u sii ilaa ay ka dhalayso in la masruufo. intaas waa xuquuqda maaliga waaye. xuquuqda diinigaad leedihiin maxaa waaye? alajru min allah. cibaadadaas rag ula simantihiin. man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min fa ulaa'ika yadkhulu ljanna. rag iyo bilcaan waa simin wanaag ninkii la imaada ahlu janno ayaa la yiri waa u simantihiin. saa darteed 10 ragga la sii idinka ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat waalqaanitiina waalqaanitaat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين لك 10 شيء oo lambar oo rag idinka 10kaas ayaa lidin sii. nacam. cibaadada waxaa kala oo xuquuqda diiniga السماح للإفطار للمرضع. hadday nuujinaysa ama uur leedahay in ay macna afurto ayaa ramadaanka loo baneeyey. nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay in allaha wadaca can ilmusaafir asawm wa shadra asalaa walxubla walmurdic. macnaha aad u dhegeysa gabaryah, uuraad leedahay, soomaa soo galay, adiga naftaada xoog ayaad leedahay, laakiin markii aad soontay ilmihii dhaqaaq ma lihin, ilmahan u cabsanaa, gabaryah afur iska qoday iska qoraac ama ilaa dhowd soo qalaynaysaa. cunugay nuujinaysaa, caanihii ay yaraadee cunugii matagaas ka bixi weeye, cunugi waa iga suuxi, cunugeesaan afur. sharciga ayaa kuu banaynaya. ragga lama siin lambarkaas idinkaa lidin siiye. waa diin ayaa macnaha ilaahay idin siiye. waxaa kale oo lidin siiye waxaa ka mid ragga markii xajka la xirta wax allaala wixii dhar oo godnaay oo dhan waa laga dhigaa. sarwaal, qamiis, funaanad, sarwaal kulli waa laga dhigayaa. soomahin 2 goocaad qaadanaan, laakiin idinka xijaabkiinaad wadantiin. dharkiina xijaabkahay ayaa lidin ogol yahay. soomahin waa nimco waaye. xijaabka ama ha caddaada ama hawado dharkiina jugta ay odweytiin oo kor iyo hoos ahay ayaa macnaa wejiga keliya ayaa la leeyahay, waxba ha asturina. xuquuqda diinigood leedihiin waxaa ka mid ciyaar ayaa lidiin baneeyey. arooska markii la joogo inaad ciyaartiin ayaa lidiin ogolya. idinkoo rag in la jirin muusika iyo wax gaduub aynay jirin keligiin. xataa haddaad rabtiin
idin keliya haddaad iska duubaysin baas ma lihin idin keliya haddaad muusig garaaca bilcaan keliya ood allaastiin ood marqaantiin saa darteed nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay ansaarta caaishoy ma ciyaarteen arooska ma u ciyaarteen fa ina alansaara yuxibuhum lahwu ansaarta ciyaarta ay jecel yihiin aroosaha ma u ciyaarteen hadda ilaan bilcaanteed qabi quraysh ay ahayd maka ay ka imaaday dadkan oo madiina joogan oo allah siiyo ciyaar ayay aqaaneen marka keligiin inaad buraanburtiin ood ciyaartiin waa idiin bannaan saa darteed nabigu wuxuu leeyahay hallaa bacadtum macahaa man yugannii macnaha maxaad gabadha arooska maxaad ugu diri weyseen gabar u heesta maxaad ugu diri weyseen bal nabigu wuxuu leeyahay gabaygan maxaad ugu qaadi weyseen oo asaga leeyahay nabi gabay ma aqaanine laakiin kalimaad soo qaato oo marqaan oo leeyahay ataynaakum faxayuuna nuxayikum waa idin imaadne waan idin salaaneena salaama maxaad ugu qaadi weysaan buu yidhi nabiga salawaatullaahi ragga looma ogolo macnaha marka aroosahaas inay ku ciyaaraan laakiin idinkaa lidiin ogolaada bal gabar oo gabdhaha ka mid ayaa waxay sharad ku gashay nabiga haddaad nabadgelyo ku soo noqdo colaad u kacee inaan hortiisa aan macnaha ku baraanburay hortiisa aan gabay ku tirna markii ay timaadday ayaa nabigu wuxuu yidhi ballankaada oof baraanbur ayaa la dhahay idinka ayaa lidiin ogolya xaqa kaloo idinka maqan maxaa waaye hadda waad aragteen ku xun iyo ku sanbax unbaad wada leedihiin macnaha meel intaa la jooga yaa khiyaara unbaad leedihiin markaas ayada macnaha de meeshaas maa meel rag ajnabi joog ku allaase lama dhihin meesha keligiinna aad tihiin oo aroosaha ku ciyaaro oo baraanbuura ayaa la dhahay laakiin nimanka ajnabi hortooda macnaha leedihiin diin maaha taas ayada xuquuqda diinta oo lisiin waxay ka mid jumcadii waa lidinka dhaafi jamaacada salaadan waa lidinka dhaafi cafis waay ragga imaadaa la dhahay idinka lidini macalkaas ayada intaas soo nimco ilaahay maahin waxaa xuquuqda diinta ka mid in salaada lidinka dhaafi waktiga daahir la-aanta tihiin iyo waktiga aad umusha tihiinba ayadana salaada waa lidinka dhaafi salaada waa lidinka dhaafi maasha allah marka dee macnaha diinta cibaadadaas faraha badan iyo khayrkaas faraha badan ayay diinteena idin siisa xuquuqdaas jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ma idin siin karta maya ilaahay idinsi ilaahay koonkan abuuri ilaahaygii idinka abuuri ragna abuuri haddaanana nooleey haddaanana dili doona aakharana na soo bixin doona aan hor taagi doona ilaahaygaas xuquuqdiinna ilaaliye xuquuqda oo bulshada xuquuq bulsho maxaad ku leedihiin waxaa laydinkugu sheegayaa bulshada waxbaba kuma leedihiin oo xuquuq ijtimaaci la yidhaho bulsho ma leedihiin maqal xaqa koobaad waxaa waaye xaqu tacliimi waxbarashada xaq ayaad u leediinteen nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi bilcaanta maalin gaaraa la siin jiray wakhti gaar iyo meel gaar ayaa wax lagu beri jiri saa darteed dalabul cilmi fariidatun calaa kulli muslimin diinta in la barto oo la raadsada qof kasta oo muslim waajib ayay ku tahay qof kasta oo muslim waajib ay ku tahay idinkana waajib ayay idinku tahay rag iyo bilcaan waad garanaysiin nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh markuu dhiminay dadkii asxaabtu waxaa lagu qiyaasaa 140,000 ilaa 120,000 markii axaadiisa la tiri lambar 1 140,000 lambarka afaraad waxaa gashay ama lambarka saddexaad waxaa soo gelaysa bilcaan caaisha ayaa soo gashay miqaa nin ay ku qaada miqaa nin ay tacliinta ka qaada miyo waxaad yeelaysiin wax barta gabdhow wax barta midda kale waxaa waaye oo bulsho ahaan aad u leedihiin waxbarashada diinta ood baratiin iyo macnaha middan kaleo maadiga aad baratiin waxaa ka mid xuriyatul ikhtiyaar arrimaha shuudi ninkaad macnaha idinka guursanaysiin in adinkaad doorataan inaan lidin qasbanaynin wixii baadi waa la duduubaa waa la qasbinaa qori cad iyo qori midow doora faataxa lagu maraa wax la dhihi jiray ma jirta caado waayo waxaas ay diinteen maxay qabtaa nabigu wuxuu li al-aim axaqu binafsiha min waliyihaa walbikr tusta'dan naagta garoobkee idaa xaq ku leh gabadha elinteene idin ayaa laga dalbaa nacam gabar oo gabdhaha asxaabta ka mid
ayaa nabiga u timaaday markaas ayaa waxay leedahay aabbahay waa i nikaaxay nin aniga aan rabin ayaad igu nikaaxay nabiga maxaad ku yidhi mataqaanaa laa nikaaxa lahu wankixii man shi'ti xadiidka bukhaari waay nikaaxaada ma ansixin nin aad adiga raalli ku yahan maad kugu nikaaxaada ma ansixine ninkaad rabta macnaha marka saa darteed caado ayay ahayd gabadha ayada nafteeda waxa la siiyey wax la yidhaha sharaf oo kif ah waxa macnaha gayaan soomaaliya la yidhaahdaa amaba leebelkeeda xagga diin ahaan xag waxbarasho ahaan xag cid ahaan xag maamul ahaan inay is ilaaliso sharafteeda ilaalisa waa loo baahanya waa la siiyey laakiin qofka ayaday doorato oy la imaada ayaa macnaha loo guurinaya markaas naagaha garoobka waa lasoo shukaansadaa laakiin gabar elin maya ay ahaan jirtay waxaa la dhihi jiri hagoogley ninkii ku heybiyey waa kaaga horreeyey naag garoob oo hagoog leh ninkii u soo warsada hortaad soo arkay laakiin waxaa ceeb ahaan jiri gabirtaada ilintee waa soo shukaansee waa is aragnee isii ceeb ay ahaan jirid geeri laakiin maanta gabadha ilintee gabadhaada heblaay mis aragteena laga bilaabo waqtigii ayaa isbedelay marka ninkii iday rabta in loo guuriya oo nin ayna rabin aan lagu qasbi karaynin bulshada iyo ijtimaaciga ayay kamil tahay waxaa ka mid الترخيص لجميع أنواع الزينة wax allaala wixii laisku qurxinaay ama wixii dhagaha lagu xiraay hadday gabdhaha qaarkood sankay budura ay gashadeen dhagaha luqunto gacmaha weliba anagu dee soomaaliya dhulkeen reer baadiyaanaana carabta waxay taqaanaa dahab lugaha lagu xiraay xataa lugaha hata lagu xiraa oo magay socona gabdhaha jalaw walaa yaldribna biarjulihinna waxaasoo ziine oo qurax oo dhan hadday dhartah hadday faashoontah waa loo baneeyey rag looma ogola waman yunasha fi lxilya nacam marka saa darteed waa bulshada ijtimaaciga oo ladin sii waaye tan kale xuquuqda la siiye waxaa ka mid laa yamnac waliyaha idaa araadat arujuuca ilaa zawjiha gabadha iyo ninkii qaba hadday heshiin weeyaan oy kala tagaan haddana waa isku noqonaynaa hadday dhahaan looma diidi karaay sharciga ma ogola in loo diido sharciga odayaasha waxay leeyihin shalaad xumaysa inta waa ma jirto ilkaas ayada ilaahay qur-aanka muxuu leeyahay falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadaw baynahum bilmacruufi laakiin waxaa batay beryahan 3 ayaa isku furayeen haddana waa israbna ay leeyihin boos ma lihin taas ayada marka hore joog isreeb gabdhaha beryahanba waxaa la arki jiray inay nimanka wareegaane gabdhihiiaba wareegaaba sheekh waa 3 ay ugu furaya ninkan ku noqdaan rabaa waa isjecelnay ay leedahay marka hore maxaad dhaqaalaysan weyse intiin 3 ayna gaarin mar ay toori tagta tootoo maxay tiri 3 intii la gaarin ka hor isreebe bareeg isku reebe dhaqdaa laakiin 3 aan isku furne haddana waa israbnaa taas diin noqonay ma haysa marka ninkii dalqadoo ku furi oy kala tageen haddana waa rabaa haddaad dhahaa lagama celin karaa looma diidi karaa waa ayad quraan waaye xaq ay leedahay waaye ninkaas inay dib ugu noqoto xuquuqdeeda waxaa ka mid xuduuruljamaaca in ay jamaacada tagaan meelaha macnaha masaajidda ay kusoo dukan karaan masaajidda gabdhaheenna maanta masaajidka markay agmarayeen inay dhahaanay marada saandhaad isha qaratay dug waa masaajidka beytka ilaahay ku duko xataa hadda waxyaalka waa masaajidda xijaab ii loo yeelay looma baahno waxaas waxba kama jiraanba maxaa yeelay nabiga zamankiisa gabdhihii qureyshaad gabdhihii carabta quraxda badnaa cadaanta badnaa la dukanay safka koobaad ragga waaweyn safka labaad ilmaha yar safka 3aad bilcaan ay hayeen wax mar dhaxda lagu xiraan ma jirin idinkan oo afrikaanka oo madow maxaa dhaxdiina gabdhaha afrikaan raalahaana dharfeen markaas laakiin nabiga wuxuu leeyahay laa tamnacuu ima allah masaajid allah gabdhaha ilaahay waa adoomo ilaahay masaajid ilaahay ka celina marka inay soo kacaan masaajidka ay saf galaan xataa masaajidka dhaxda aan xirig lagu xirin aanan dah loo yeelin ayaa xuquuqda ay leeyihiin ay kamid tahay xuquuqda bulshada ay leeyihiin waxaa kamid inay baabuur wadi karaan inay farda fuuli karaan inay dameer iyo baqlo ay fuuri karaan walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha waziina bilcaanta zamanka rasuulkeena subnay fardaha ayay fuuli jireen awrta gaadiidka rukuubka ayay fuuli jireen
marka saa darteed waxa maanic maaha hadday baabuur wadata haddii ay macnaha ay kareeto ay wadata haddii ay faras wadata maanic maaha bulshada ayay ka mid tahay markaas ayade xuquuqda waxaa ka mid laa yajibu khidmatu zawji calayha biitifaaqi almadaahib alarbaca meeshaan ow ragow ha dhirfin raalla ahaada bilcaanta aad guursata ciidan darra aad u guursatay gaal inay kuu dhaqaalaysa ariga beerta dukaanka inay kuu dhaqaalaysa waajib miya maya su'aal kale bilcaanta cunto inay kuu kariso waajib miya qada iyo quraac iyo inay kuu kariso waajibay ku taha maya bilcaanta inay dharka kuu dhaqdo waajib miyay kugu taha maya waajibku ma aha afarta madhaboodna waa isku raacsan yihiin maxaa yeelay bilcaantan wax xooggeeda oo dhan naaraad geli ninkaada looga cagjuglayna oo dhan nabiga wuxuu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayhi jannada ayaan ziyaara aan u tagay naartana ziyaara ayaa liigeeyey dadka naarta gala bilcaanta u badneed laa ilaaha illallah bilcaanay magiis maqashiin beerkiini manaxaa sababta laakiin nabigu waa sheegay wuxuu leeyahay habaarka ay badiyaan ninkoodana way ku abaaldaraan xoogga bilcaanta la saaroo dhan sariirta waaye inay issharaxda oo ishagaajisa sariirta waaye amaa nabigu salawaatullaahi wasalaamu zamankiisa bilcaanta dharka waa u dhaqi jireen waa u khidmayn jireen cunto ay u karin jireen laakiin waa ixsaan jeebkooda waaye waajib korkooda saaran maaha haddaad ninka kac cunto soo kare la dhahaa ama maqaayidka keen la dhahaa soomaalida ceeb ay ka dhigeen markaas ceeb ma arrintaas waajibku maaha laakiin ixsaan ifal waana ku mahadsantihiin gabdhaheeniyow waad ku mahadsantihiin xuquuqda ay leeyihiin waxaa ka mid oo bulshahaan xuriyatun fii tasadaqi maaliha xoolaheeda waa sadaqaysan kartaa hadday xoolo leedahay xoolaheeda waa sadaqaysan kartaa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh maalmaha ka midii ayuu gabdhihii saxaabiyaad u dhawaaqi markaas masaacadaa loo baahanya ayaa la dhahay maro weyn ayaa la fidhi dhagadhagahoodii oo dahabka ahay ayay meesha ka soo buuxiyeen oo bilaal ayaa marada fuuday nacam xuquuqda bulshada ay leeyihin waxaa ka mid ilmahooda inay xanaanaysan karaan haddaa la kala taga haddii la kala taga niman badanaa waxay leeyihiin naagtan waa fura ilmahan meena ay dhigta maya ilmaha ilaa todojar ay ka gaarayeen waqtigul xallaanaha ayaga xaquli waana ku biilaysaa marka horeba naag ilmo ku waayis maxaduu fili dhibka raysana maysid biilna kaahiri maaye saa darteed nabiga markii ninkii naagtii isfuray cunug ay isku qabsadeen wuxuu ku yidhi anta axaqu bihi maa lam tankaxii ilmahan adiga xaq ku leh ilaa aad ninka guursanaysa xaq ayay leedahay waxaa ka mid bulshahaan qisaas haddii oo qof aad nin amaba naag aad macnaa amaba nin gacan ka gooye ama nabar aad ku dhufta inay qisaasata ayay u bannaan nabiga wuxuu yihi almuslimuun takaafa dimaam dhiigooda waa samin yahay waxaa kaloo xaq u leedahay haddaad ninkeeda caaye meeshaan dowlad islaam ma hoos joogno arrinta waxaa badata in liscaaye naagtan sharmuuto waa dhilli waaye hebelaa qaba nimanka masayrka badan inay dacweyse qadaf ayaa la yidhaha aflagaada ilaahay wuxuu leeyahay waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa naagahooda dhillinimo iyo sharmuutinimo ku tuurayiin walam yakun lahum shuhadaa 4 nin oo markaatina aanan haynin soomahin kuwaas ayada waa la xadayaa 80 karbaash saa darteed oo masayrow bareeg yeele afkaada qabsa bilcaanta haddii kabacdi aad masayrte waa lila qabaa inta waaye niman oo masayr keliyaha guriga markay ka baxayiin marada dhulka xaaqayiin oo la sheegay oo raad ka raadinayiin oo masayrow ama raalli noqonin naagtaada xataa haddaad nin ku qabato ma sheegi karaysta haddaa sheegta 80 karbaash licaan waa lagu baahan yahay inaad licaan aad la timaad waa ku bannaanta laakiin naagtiyaad nin ku aragtay ma sheegi karaysa haddii kale 80 2 nin ay isku aragteen ma sheegi kartiin waa laydin garaaca 3 nin ayaad ku aragteen hadday sheegaan aflagaadu waaye suuqa oo dacaayad waaye waa la garaaca 4 nin oo ninkeeda ku jiro hadday nin ku qabtaan ma sheegi karaan hadday sheegaan 80 karbaashaa lagu dhufanaa markaas ayada 4 nin oo shuhaada oo ninkeeda ku jirin hadday soo sheegin markaas marka aflagaadu waaye marka waa dacweyn kartaa
sidaasoo kale haddii xaq wax u fuliilaysa waxaa kaloo xaq u leedahay ninkeeda ayaa ka dhaartay gurigaada geli mahaye macnaa 5 bilood 6 bilood guriga uu geli maha markaas ayada arseed rabtaa naayahe ayaad leeyahay markaas ayada 4 bilood haddii aad guriga ugu imaada weeye oo waa dhaarta la yidhaahda waa la qabanaa waladiina yu'luuna min nisaa'ihim 4 bilood aa loo qabanaa 4 bilood hadday dhammaata aya laba ama gabadha guriga gal macnaa sariirta aad haddii kale gabadha fur ayaa la leeyahay marka saa darteed waxay xaq u leedahay ninkeeda naagshidii haddaad noqdo soomaalida waxay taqaanaa naagshidi laakiin ninshidi ma la sheega maxaa u sababee bilcamaa waxay yidhaahdaan aabbaay intii waran leh waa walaala warnimiyo arrintaas waxbaa ka jira maxaa yeele ragga culummada culummada waa ragga caamadana waa rag haddee bilcaantii wixii dhibayo oo naagshidi waa la sheegaa laakiin ninshidi lama sheega culum allahi ninshidi maxaad u sheegi weyseen suuraddaanaaba dhegayse waxaa waaye wa in imra'atun khaafad min baclihaa nushuusan naagshidina ayadda suuraddaanaa sheegtay ninshidina waa la sheegay ninkeeda ninshidi haddaad noqdo oo biil-aan iyo wareeg iyo gugul la-aan inay dacweyso ayaa u bannaan xuquuqda bulshada ay leedahay waxaa ka mid in ay ninkeeda ka fasaqata haddee soomaalida ma taqaana arrintan fasaqa waa biil-aan ninkii iyo naagtii oo isjecel ilmaha haddaan rabo lisu haaye lisu dhudhunkunaa xafiiska qaaliga ayay tegaysaa aniga biil ma helin ayay leedahay waa loo dhawaaqaa 3 biryaan kuu qabanaa gabadhan biil c ayaa la leeyahay 1 habeenkii waa la saaxanaa waa isjeceliin waa isdhunkunaa sariirta isla saaxadeen 2 wax lama haaye 3 wax lama haaye dhaartii 4aad maxkamadda ay tegi waa laga fasaqaya markaas ayada ragow haddii oo sharciga lila qaabiliyo gabdhaha laguma ciyaareen gabdhahan oo ilmaha in lagu furo si daanyeerta dusha ku wadaan oo xafiisaha qaaligii durmigaas ayada biila-aan waay waxa la siima gabdhahan ayaga dhammaalaba qaxooti u wad ekaan silac isa xariire maya gabdha duli looma ogola war u fiirsi digaal ma anaga soomaalida fasaq waxay u taqaanaa naag laga maqan yahay ninkeedaa la weeye maya ninkii naagta raalli isu yihiin waa isla saaxanayiin ilmaa isu dhaleen hadday sabarta alxamdulilah hadday sabri weyse oy gaajada ku sabri weyse 3 bira loo qabanaya maalinta 4aad waa laga fasaqaya fasaq khalaas waaba laga furayaaba wax xaq ay leedahay ariyaa gabdhow waxaan idin su'aalaa xuquuqdan oo la sheegay jimciyada quraanka waxaan meedin siis xaqa ay leedahay waxaa ka mid alfasqu cinda al-isaar bilmahri alxaali mid ka sii daran waaye gabadha beriga waxay Soomaalida ay yiraahdaan ragga beenna waa lagu soo xarigeliyaa naag runna waa lagu maamulaa 2 shaati aad u gashadee baabuuraan leeyahay diyaaradaan leeyahay waa iscadeey caashiqay dhahdee nikaaxay dhakab ku sii mahar haddee maharkayda ma aan rabaa aan ku shaqaysanaa dahab aan ku gadanaa intii arooska haddaan rabo alaab aan ku gadanaa maharkayda sii mahay maharkii oo lagu heshiiye oon daynahayna waa ku siina aad dhahay haddaad siina weeye oo weliba lis aroosin waa ka fasaqanaysaa meeshaas rag badan oo gabdhaha siraan ayaa macnaha ayaa baas weyn haddee marka horeba maharka daynaa ka dhigin maharkii miqaa waaye maharkii ma daynaa mise waa la bixinaa waa bixinaa gormad bixinaa waaba siinayaaba sooma dhin daynba mehen soomaha bis gabadha waxay dhahday intii la aroosin hebelow isii dahabaan ku gadanaa arooskeena nafteeda alaabaan ku gadanaa isii ma ahaye fasaktu way ka fasakhan kartaa waxaa kale oo xaq ay leedahay an tamnaca nafsaha litaqbala mahra alxaliy allahu akbar reer xamarka arooskooda waxay yaqaanaan waxa la yiraahdaa foolfayd gabadha markii waa la soo xirxiraa adigoo waxaas aad sheegataan siinin wejigaa u banaynaan leeyahay isagu macnaha ma ka faydi karaay gabadha waxa u bannaan waa maharkeeda dayn maheen waa la soo allaasi waa la soo xareey sariirta alla keenay ninkii naagd guriga bannaanka looga bax aroos waaye ay gacantaad u soo taagay hay taaban haddii kale maharkayda ma heynaysaa maxaa waaye kitaabka minhaajkaa dhigay naagta maharkaadaad dayn ahayn tii hore fasaq ay ahayd
middan waxaa waaye maya hay taaban ibtayda ma taabanaysid ilaa aad maharkayda meeshaan xaq ayay leedaha waaye mana diidi karaaye mana garaaci karaaye xaq ay leedaha waaye anigaa gabdhow waxaan idin su-aalaa midaan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa mihinkugu darta oo xuquuqdaad sheegaysa midaan mihinkugu darta allahu akbar nacam waxaa kale ooy gabadha leedahay xaq ay leedahay ninkay jirri ku aragtay cudurraha xum ama baras ama juudaam ayay ku aragtay macnaha waa ka fasaqanaysaa laa ilaaha maxaa kugu dhaca waxaa kaloo la too ninkani ragnimada waaba loo gooyba baybka ragnimada maba qababa marka horena waa isu sharaxo nin ana ayaa dahay maxaagaad soo qaadana maye waa ka fasaqanaysaa cunna maxaa waaye cunna waxaa la yidhaahdaa adee ninkii maxaa ku dhaca haddii lasoo arooso oo sariirta laiskugu imaadaba ninkii alaabtiis maba kacaysaba motoorkiisaba ma kacayo maxaa kugu dhaca inta waaye ayee faataxada isku akriya kaca quraan soo akhrisa gabadhaba ma dhaamo markaas ayada fasakto waa ka fasaqanaysaa xuquuqdaas ka warrama waxaa kale oo ay leedahay gabdhaha midaan macnaha ninka alaabtiisaa weynaatay cubaalatu zawj ayaa la yidhaahdaa gabadha tankeeda waa ka badan yahay acuudu billaahi abo hadday aragtaba waxaan gabadh dharkaadaad soo dhawaa dameer oo kaleat allahey ka allah waad diidi kartaa markaas ayaday laakiin agow markaataa loo suubinaa ninkan tankaydaad ka batay waxaan meelaad mariyo mahaye hadday tiraahda oy ku soo dacwooto kabacdi waxaa le gabadha ha taabanaa leeyahay biilkeedana sii laakiin 4 bilcaam ayaa la diraa 4 bilcaana la diraa oo laleeyahay meeshaan dirishada ka fiiriya kabacdi haye adigna marada dhiga haye macnaha haye isbarakeeye waa la fiirinaa markaas ayada waa shaqayn karaa ma shaqayn kara 4taas bilcaantaa laga wersugaa maye gabadha runteed waa hadday dhahaan bis waaye ninka gabadha waa laga celinaya been ay sheegaysaa ninkii wixiisa waa caadi hadday yidhaahdaan edab yeele ayaa la leeyahay xuquuqdaas waxaa kaloo xoq ay leeyihiin maharkooda aabbahood ama walaalkood macnaha ma cafin karaaye gabadha maharkeeda anee cafi maya ma cafin karaaye walaalkeed ma cafin karaaye nacam waxaa kaloo xuquuqdeeda ka mid gabar ilin hadday tahay 7 biri ayaa lala jiraa garoob hadday tahana 3 gabadha oo biriyaan maxaad suubisiin gabdhaheenna kulli garoob waaye maxaa yeelay 3 biri magala joogo waxaad maqli tadabax waa aad maqli maxaa kharaj looma hayo inta waa gabdhaheenna kulli waa ceebeen gabdhihii waad ceebayseen hadda dhulku waxa jooga oo dhan gabar ilin waa leo 3 biri macnaha garoob waaye gabdhihii ma waqafa mawdica tuhma falaa yaluumanna idinkaa is caynaysiinba gabadha ilin maam 3 tii looga baxa todobadeeda haddee waa garoob waaye garoob 3 ayaa iska leh garoob ayaa iska leh 7 ayaa iska leh macnaha kharaj maxaa keenay dadka biilka dhigana oo arooska oo dhaar walba duda intay u socdaan ninka naagta macnaha faraha iskiga qaada maxaa yeelay gabadhan waa cusubtaha waa la tababaraa xoogoo waa seminar ay u baahan tahay kabacdi 7 biri seminaarkeeda kama yaraan karaaye faraha laga qaada garoob haddee tababar ay leedahay 1 2 3 waa ku filan yahay markaas ayada marka xuquuqdaas faraha badan ayay sharcigeenna idin siinayaa shareecada marka dee hadda waxaa noo haray xuquuqda siyaasiga xuquuqda maaliga waan ka soo hadnay xuquuqda diiniga la siiyey waan ka soo hadnay tii ijtimaaci bulshada waan ka soo hadnay xuquuqda siyaasiga waxaa ka mid lahuna shahaada markaati ay leeyihiin inay markaati kacaan nimanka naag markaati ma kacda maya markaati ay leeyihiin ilaahay muxuu leeyahay fa in lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani markaati ayay geli karaan laakiin meelahay markaatida ka galayaan xuquuqda ilaahay maahan xuduud oo 5 kuma jiraan laakiin inta kale oo macna waa xuquuqdooda waxaa ka mid oo siyaasiga dumaal laguma lihin naagta dhaxal laguma lihin caado waxay u leeyihiin Soomaalida walaalka ama xoolaha kaaga dhinta ama xilaha kaaga dhinta dumaal doorasho ay leedahay wax dumaal la dhaha ma jiraan naagta xoola la dhaxlaa ma aha maqal aayadda quraanka yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarithu nisaa karaha dadka muslimiinta
bilcaanta inaad dhaxashaan sidii xoolihii maya idinma bannaana marka saa darteed waa soomaalida maxay isku bi'in jireen naag dumaalaa la guursaday wow dumaala bac wad macnaha hadde bal dumaal ninkii guursaday 12 halaadaa laga qaadaa geelle aayadda qur-aankana waa akhrinayeen aayaddan waa akhrinayeen waxaa laga yaabaa aayaddan inay ku akhrinayeen qurbacoo jirin neefkaoo jirin ay ku akhrinayeen aayaddan iday la warramay waxay leedahay dumaal ma jirtaa waa la yaab xuquuqdooda waxaa ka mid lahunna alwalaayatu alcaama mas-uuliyad caam ayay leeyihiin bal inay ximin noqdaan mas-uuliin ay ximin ka noqdaan oo bulshada ay ximin ay kursi ay macnaha ku fadhiisata bilcaanta xaqa ay leeyihiin diintaasina maqal aayadda qur-aanka walmu'minuuna walmu'minaat ragga mu'miniinta iyo bilcaanta mu'minaadka bacduhum awliyaau bacd mas-uuliin iyo macnaha qaraaba ay isu yihiin ya'muruuna bilmacruuf wax allaala wixii macruuf way isfaraan wayanhawna cani ilmunkari waxaa loo soo daliilsanaa annahaa takuunu cudwan fi lmajlis nacam laakiin xagga loo kaca siyaasa ahaan waajibka maaha gabdho badan askar qoranayeen macnaha noocay noqotoba askar inay qortaan waajibka maaha dhulka inay difaacaan waajib maaha nabiga ayaa wuxuu ku yidhi laysa calayhinna jihaadun wa jihaaduhunna xalxa jihaad laguma lihin difaacooda jihaadkooda xaj waaye waa loo fududeeyey markaas ayade waxaa ka mid albeeca xuquuqda siyaasada inay wax dooran karaan ayagana la dooran karaa intikhaabaadka yaa ayuha nabiyu idaa jaa'aka almu'minaati yubaayicnaka ina ay ballan geli karaan oo ay doorasho intikhaabaad geli karaan ayadana loo soo daliilsadaa nacam xuquuqda siyaasiga waxaa ka mid haddii dalqadoo lagu furo ama 2 dalqadood lagu furo oy ciddi ku jirto masruuf ay leedahay masruuf waa la furo soomaalida naaga la fari fadhow mi yaale ninka furana farkii kula laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna layira marka horeba guri aan laga saarna la dhahay ayadoo la furi biil leedahay ayadoo la furi ayay biil leedahay ilaa ciddida ay ka dhammaanay biil ayay leedahay xuquuqdeeda siyaasiga waxaa ka mid haddii la qasbo oo la xoogo mahru mithil ayay leedahay iyo arshul bikaara mahru mithil maxaa waaye bilcaantii la xoogay oo la kufsaday maxay ahayd ma gabar ilanay ahayd haa mahru mithil horta marka ugu horeysa ardaalkan xiridiisa dowladda iyo balashmaysi dowladda gacanta loo geliyay laakiin gabadha marka hore xuquuqeeda la keen horta xaqeeda maxaa ka mid kow gabadhan gabadhaha la dhashay maxaa lagu mahriyaa waxaasaa lagu mariyaa ama lacag ama geel ama ari meeshaana la soo dhigay kow gabadha waa la bikaari jibi gabar ilinahayd waa la bikaari jiri bikaaradeedana idin xoolihii mehna la soo dhigay xoolahaas xataa geel waaye arshul bikaara geel waaye xataa wax kale maaha hadda waxaa waaye xuquuqda bilcaanta ayaa la leeyahay macnaha kii wicilka xoogana kuwii la dhashay ayaa laaluush bixinayeen oo xafiiskay u kacayiin ayadana kuwii la dhashay waa dacwoonayeen idii dhiigeeda daadana wax loo qaadana ma lixin sharciga dowladda xabsigaa la geliyay ninkan ha dambeeya laakiin gabadha xaqeeda la siiya waxaan ogahay county Madera meel ka mid wiil ayaa gabar kufsaday gabadhii dadkooda waa dacwoodeen waa la soo xiray booliiska ayaa la keenay kuwii wiilka la dhashana lacag ay bixinaan noo daayey kuwii gabadha la dhashana macnaha kuwaana waxay bixiyeen 50,000 laaluush kuwaana 50,000 nin gaal ee 100,000 jeeb ka gashaday gabadheena macnaha waatan dhiigeeda daadana waxba looma qabinin labada cidood waa lagu kala tagay qaraabanimadii iyo macnaha waa tagtay mar maxay tiri markaas ayade xaq marka ugu horeyso diinta sharcigiisii waxaa waaye gabadha la xooga kow mahru mithilkeeda horta meel la soo dhigay ninka laga qaada kow arshul bikaara waxaa kale oo intaa dheeraad haddaad 2 jeer u taga 2 jeeraad maharka noqonaa 3 jeeraad u noqoy 3 jeer 3 nin hadday u tagaan min mahara ku waajibayo 10 dhinac u tagtay 10 mahar ayaa waajibaysa 10 mahar ayaa waajibaysa marka saa darteed waxaa kale meeshaan haddii aad yiraa masruufi mahay ma masruufaaye waa diid tabaraa loo weeye waa diid xoog kaaliga qaad aad leeyahay waa fasaqan karaysaa waxaa kale oo xaqa ay leedahay siyaas ahaan
ninkay rabta inay tiraahda niyoo i guurso ninkan waa ku jeclaada haddee beryahan wiilishan baa wareegaa gabdhaha ma dhawaaqaan badana xishood ayaa ugu wacan sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa bilcaanta wax macaan iyo marqaan iyo jaceyl iyo oo ku sugan ooy haayaan waxa kor laga saaray xishood ayaa kor laga saaray haddaa xishoodkaas laga qaadi lahaaye suuqa dhexdiisa ay macnaha ragga hoostiisa fadhiisan lahaayeen xishooda yeela naag oo dhanyaraynay soo socota la arki maaye naag nimaan la baxa la arki maaye laakiin xaq waxay u leedahay nin hadday jeclaato wanaag iyo khayr ay ku jeclaata niyo waa ku rabaa i guursi inay tiraahda ceeb kumaa diinteenna sidaasay qabtaa nacam nacam waxaa kala qofka guurinayo oo mas-uulkeeda haddaad nin faasiq ad yahay maya faasiqa tahay ima guurinaysa waa dhihi karaysaa afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan walaalayaala xuquuqda ay bilcaanta alla sii subxaanahu wa tacaalaa intaan keliyaha laguma soo koobi karaayo xuquuq fara badan ay leedahay idana xuquuq lagu leeyahay ayaa jirta marka ikraaha waxaan dhahnay gabadha oo la xoogo haddee jirkeeda dhibaato loo geeyey wixii dhaawac iyo dharkeedii kulli waa la gudaa waxaa kale oo ka mid macnawiyan ayaa gabadha loo dilay macnawiyan maxaa waaye haddee gabadha macnaha lama guursaa tii la xoogaay aa laleeyahay tii la xoogaay waxaa ka mid xoogitaanka kuwaan laleeyahay sirtaadaan faafina sawiraan kaa qaaday waa qayb xooga ka mid ay noqonaysaa ama wuxuu leeyahay haddaad isiin weyse haddaad iyeeli weyse waan ku dilaa ama ciddiina wax yeelaa marka ida nafteed qayb oo xooga ka mid ayay noqonaysaa bal alxiraaba burcadnimo ayay culammada qaar ku diidina markaas iyada waxaa kale oo gabadha haddii la xoogo oo ximintii oo taranka caloosheedii ibnaha qaada lahayeen ay dhimata kontonkeeda ayaa waajiba amaba gabadha waa la xoogay waxaa ka dhintay ladatul-jamaac macaankii ayaa ka dhintay ayadana kontonkeeda ayaa macnaha gabadhii waa la xoogay waa isu go'day nimanka xoogaan waa isu gooyeen kontonkeeda ayaa la bixinaa markaas ayada marka jazaakum allahu bilkhayr wixii su-aal intaan waa xuquuqda aad ilaahay siiyey amaa xuquuqda ayaga lagu leeyahay waqti kale ayay noqonaysaa wajazaakum allahu bilkhayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu